guuraha beenimo shirmaada arooriyad oo jaanta lala saarayo wax kasta oo lidi kuwa amniga iyo xasiloonida deegaanada Puntland waa sumada ciidamada badda Puntland ee BMPF waxay ka hortagaan burcadbadeedka kalluumaysiga sharci darrada hubka kontrabanka mukhadaraadka iyo la dagaalanka argagixisada maladaan ciidamada badda Puntland ee BMPF intay ka soo afmeerayaan aroor habeen ayay u jeexanjeexaya jarka jilibkana ay u dhigaan gobolka Gordofuu waa gobolka leh badda ugu dheer Puntland iyo guud ahaan Soomaaliya taariikhda guumka ana ku suntan sida uu muhiimka u yahay ciidamada badda Puntland ee BMPF mudnaanta u siiyaan saldhig balaaran ayay ku leeyihiin hawlgallo aan kala joogsi lahayn ayay markasta ka fuliyaan si ay u xaqiijiyaan amnigiisa iyo xasiloonidiisaba run ahaantii ciidankaasi waa ciidan tababaran oo akhlaaqaadkiisu u leeyihiin oo habka ciidan lagu arki jiray ah wax dhibaato ah oo deegaanka intay joogeen lagala kulmay ama dadkii ay iskaga hor yimaadeen shacabkii ma jirto soo kordhida in base BMPF leedahay magaalada Caluula laga hirgeliyo taa iyada waxay soo kordhisay in xaqii badda iyo ciidankii mariinkana shaqadoodii baddana la laban laabo waxaan diyaar u nahay annagoo ka duulayna taliskeena guud ee ciidamada badda Puntland ee BMPF inaan la shaqeyno gudoonka gobolka hadii noqon lahayd gudoomiyaha gobolka taliyaha qaybta iyo duqa degmada Caluula annagoo ka hortagayna wax walba oo khalkhal gelinaya amniga gobolka Gudub ciidanka BMPF waxay wadaan waxqabad ku salaysan shan waxyaalood oo muhiim u ah gobolka dakhli ba wasaaradda maaliyadda kalluumaysiga hay'adaha wax soo saarka oo dhan dakhli bay soo xiran jireen dakhliga marka waqtiga meesha uu taagnaa iyo hadda farqi weyn baa u dhaxeeya oo xataa ay sabab u noqotay shaqaynta maxkamadihii inay shaqeeyaan in la soo qabto dambiilayaashii canshuuraha la fakanayay in wasaaradda maaliyadda kobaceeda la kordhiyo in waxa weeye dawladaha hoose ay la shaqaynayaanoo canshuurihii hadday bad ahaan lahayd iyo hadday bari ahaan lahaydba ay u shaqaynayaan xaqii barigana ay ka howlgalayaan ciidanka BMPF waa soo dhaweynayna waana u baahnayn ciidan amniga suga ciidanka BM waa niman dalka amnigiisa iyo dhismadiisa ka qayb qaata wey ay bulshadii ka qayb qaadanayaan horumarkii deegaanka ay garab weyn ka geysanayaan xaqii ma garanaysaa humanitarianka ay qayb weyn oo ma garanaysaa la taaban kara ka geysanayaan waxyaabaha caynkaas oo dhan waxay abuuri karayaan waxa weeye nuruuro wanaagsan oo muuqanaysa waxaan u baahanahay dadka deegaanka sida diiran ay noo soo dhaweeyaan inay noola shaqeeyaan ciidanku wax qabad yeelan maayo haddaysan la shaqeyn dadka deegaanka marka waxaan u baahanahay odayaasha iyo waxgaradka magaalada inay ciidanka si wanaagsan ula shaqeeyaan wax kale idinku imaan inaan xaqiijino amniga magaalada annagoo ka duulayna taliska guud ee ciidamada badda Puntland waxaan u baahanahay har iyo habeen cidda aan tuutahan u wadano waa idinka si aad ugu noolaataan mantiqadan iyo deegaankan si nabadgelyo ah oo xor iyo xalaal ah inaad ugu shaqaysataan marka waxaan u baahanahay si dhow iyo si gaar ah noola shaqaysan ciidamada badda Puntland waxaan u baahanahay wax walba oo khalkhal gelinaya amniga hadday noqon lahayd burcadbadeed hadday noqon lahayd kalluumaysiga sharci darrada haddaad aragtaan inaad la soo xiriirtaan ciidamada badda Puntland marka waxaan idinka codsanaynaa inaad si dhow noola soo xiriirtaan waxaan idin siinaynaa lambarada gaaban oo si free ah lacag la'aan ah qof walba hadduu bad joogo iyo hadduu bari joogo uu soo wici karo taasoo idinka saacidaysa inaad si dhow u heshaan ula macaamiishaan ciidanka badda Puntland marka waxaan idinka codsanaynaa inaad lambaradan qabsataan oo si dhow noo soo wacdaan insha Allah ballanteenu waa guul iyo Puntland wada xora aad iyo ciidanka BMPF runtii deegaanka marka ay yimaadeen wax badan baa iska bedelay boqolkiiba boqol hadda amniga kor buu sii kacay cashuuraha iyo muxuu ahaa dakhligana de nabadoonnimo iyo odanimo wax lagu qaadi jiray
caawa u dambaysay magaalada waa nalooga shaqaynayay kormeeraha noo socday waxa weeye amnigu waa noo sugan yahay alxamdulilah haddaan nahay dhalinyarada inaan qaabka hadda ula shaqayno qaab ka sii fiican inaan ula sii shaqayno waxqabadkooduna haddii hal tusaale aan u soo qaato hadda caawadaasaan halkan fadhinno magaalada hoodan ka jirtay howlgal fiican oo qurux badan oo muxuu asluub iyo dhaqani ku jirto baa ka socda caawa magaalada taasna ciidanka ugu mahadcelinaya iyo taliyahooda annaga hooyooyinka iyaga nacam dumarka iyaga dumar ahaan insha Allah bidnillaahi kariim waa la shaqaynaynaa horena waan ula shaqayn jiray oo waxa weeye dawladda iyo amniga iyo wixii wadanka ka jira waa ka shaqayn jiray haddana diyaar baan amniga iyo la shaqayno iyo ciidamada iyo wixii maaragtay horumar wadanka ka socda waxqabadkeena guud aan ka damacsannahay deegaanadan waxa weeye inaan ka hortagno wax walba amniga iyo mandaqada Puntland khalkhal gelinaya haday noqon lahayd kalluumaysiga sharci darrada ah muqaadaraadka hubka sharci darrada ah iyo wax walba liddi ku ah haday noqon lahayd argagixisada Daacish iyo Al-Shabaab aad madaxweynaha waxaanu ku bogaadinaynaa ciidanka amniga oo noo keenay annaguna badan waxaanu qaadaynaa amni qofku isaga ku nool amni la'aan lama noolaan karo lamana seexan karo waa la shaqaynaynaa waxaa ka bilayska MBF kullu ciidamada Puntland diyaar baanu nahay inaanu soo dhaweyn taliska guud ee ciidamada BMPF waxay shacabka Puntland ku wargelinayaan nambarka gaaban ee 3311 kaasi oo aad u soo wici karto si lacag la'aan ah